asalaamu calaykum waa mar kale iyo muuqaal kale iyo magaalada hargeysa channelkan insha allah waxaan kusoo bandhignaa inta badan sidaad ogtihiin baa horumarka ka socda magaalada hargeysa hadday noqoto dhanka wadooyinka iyo quruxda iyo dhismaha hani isbedel. Waxaan tagnay maanta mid ka mid a meelaha ugu muhiimsan horumarka ama isbedelka magaalada hargeysa uu ka socdo. Waxaan joognaa maanta surprise maanta waxaan joognaa bariga magaalada hargeysa xaafada Erytay iyo New Hargeysa. Wow, waa arkaysaan in meeshii laga dhigay dhir eco-friendly ecology, I don't know. Waxa weeyaan maanta waxaynu intusi doonaa dhismaha biriishka saddexaad ka afraad biriishka weyn magaalada hargeysa weliba qaab fiican oo qurux badan oo say ka muuqata arkaysiin loo dhisayo. Waxaan joognaa bariga magaalada hargeysa iyo xaafada New Hargeysa iyo biriishka lagu magac daray Dahab wadada waxa la yiraahdaa Dahab Road. Saad arkaysaanba magaca ka arkaysaanba waxaa biriishkan fangrey ama lacagta bixiyay ama shaqada wada shirkadda Dahabshiil. Marka already waa biriishkii afraad magaalada hargeysa laga sameeyo dooxa isku xidhaya magaalada, iyadoo biriishkan laga dhaxli doono laga heli doono fududeyn xagga isku socodka gaadiidka xilliyada jaamka. Weliba dad badan soo wareegi jiray markay imanayaan suuqa ama markay ka tegayaan suuqa ayaa si yar oo fudud u iman karaa imka suuqa. Insha Allah biriishkan marka la dhameeyo haddii alla yidhaaho. nin xaafadan degan wuxuu sheegay inuu gaari iibsanayo ama meelahan biriishka u dhow. Wuxuu ku leeyahay gaari waxaan iibsan waayay meelahan soo marayo, laakiin imika gaari waan iibsanayaa buu yidhi. Masha Allah, dhowaan biriishka dhammaad buu iskaga dhow yahay sida idiin muuqata. In xagga sare la shubo ama wada la dul saaro ayaa hadhay. Sida idiin muuqata biriishka hoos buu qodan yahay, tiirarka dhulka hoostiisa in badan bay hoos ugu jiraan. Tayadiisu waa heer caalami. Marka masha Allah waa arrin lagu farxo in muddo ka bacdi biriishka hargeysa malaha imsa sano dhisan yahay biriishka hargeysa talo I don't know 8 sano dhisan yahay talo korma la sameeyay talo muugi waan arkay un biriishka hargeysa samaysan. Boorkan yar idiin muuqda wax weeyaan in biriishkan ay fangareysay shirkadda Dahabshiil Group. Marka biriishka marka la taagan yahay waxaa la arkayaa masallaha xaggaas laga arkayaa fooqa magaciisa maxaa la yidhaahdaa hotelkaas I don't know weli magaca waxa loo bixiyay garan maayo, weli lama furin. Laakiin in yar fudud waxaan tusi doonaa sidoo kale xaafadda New Hargeysa ama wadada New Hargeysa. Waa mid ka mid a meelaha ugu fiican businesska meeshan. ciyaar mood caana bowdhaha maqla jirteen ciyaar mood caana bowdhaha. Xaafadan population badan baa ku nool. Ganacsiga waxay ka dhigan tahay meelaha hadda ganacsi furanaysid magaalada hargeysa hadda tahay dadka jecel in ganacsi samaystaan ama banay wax iibiyaan. Bartan waxa weeyaan meelaha ugu fiican ganacsi laga furto wadada agaarka wadada weliba inkastoo imika dee qaab online la wareegay dadkiiba online ba imika dad badan ganacsadaan in meherad la furto dad badan baa u leexday dhanka online-ka. Haddana waxyaaba qaar baan ka maarmay karin sida hoteelada cuntada maqaaxiyaha cuntada hodheelada cuntada maybe maqaaxiyaha cuntada
ayaa u leexday may maqaaxiyaha may leexan maqaaxiyo iyagu waa in meel ugu imaado marka saa darteed hoteeladoo kale waxyaaba badan baa meeshan ka bannaan. So waxa weeyaan meelaha ugu fiican ganacsiga. Imanka xaafaddan aad uma kala qaano, iminka waxaan soo gaarnay meesha la yaqaano magaceedi muxuu ahaa magac baa lagu sheegay, magaca qadiimiya. Meeshan waa meesha looga laabo baan filayaa beerta libaaxyada magac kalena way lahayd waan iloobay. وما أدرك ما حافظة نيو هرقيسة يا أحبابي حقا بندير بيلا هاي sidoo kale wadadan diwaan waxba laga dhisay ayaan filayaa in la habeeyey dib dhis ama waa la dhisay gebigeedaba marka qaybihii biyo marihiina aad bay u leedahay ama way wanaagsan yihiin. wadadan dhaylku ku qiimayso wareer wadooyinka imika la dhisay magaalada Hargeysa ugu yaraan 10 sano oo shaqeynayaan quality-ga wareer imika waa qaar waa dhisan 2 sano 3 sano 4 sano maybe haddana meel ay ka jabeen ma jirto. wadooyinka la dhiso dhan kuwii guuraysa xataa lagu bilaabay still waa la shaqeynayaan, meel laga sameeyana ma jirto. wadada marka la sameeyo maalintaas ugu dambeysa meelaha yaryar way jiri kartaa, laakiin wada lagu noqonayo sanadka bacda dhan ka kabayo waxaas waa laga gudbay waa laga tegay waxaas. marka insha Allah channelka waxaan soo gelinay muuqaal badan oo ku saabsan magaalada Hargeysa, horumarka iyo xaafadaheeda iyo suuqyada waxyaabahaas. haddaad dib u noqoto waa daawan kartaa muuqaaladii hore aan soo gelinay haddaad jeceshay inaad dib u daawatid. insha Allah haddii ilaahay noo suurtageliyo insha Allah muuqaalo badan waan soo wadnaa, waan soo gelin doonaa meel badan oo aanad weli moji tegin magaalada Hargeysa. Okay. New Hargeysa Ramas Cafe wala cafe agana manuu wax maqlay hotel ba meelahan laga sameeyay. I don't know exactly meesha waxa hotelku, laakiin meelahan weeyaan waxa jirta nin xaysiyo waxyaabaha cusub magaalada Hargeysa. marka taxi ba soo kaxaystaan samacado oo dush ka saaraan hotel cusub la furay xaafadda xaga dad doonaysa cunto dhadhan cunto suxulada iska leefisid. waa weeyaan xaysis marka xagga ma laga laabayaa brishka baxan laabana dhanka migta waa marka brishka already waa joogtaa. Wow, assalamu alaikum.